السلام عليكم دمان arday soo dhawaada maanta waxaan baran doonaa isim jumlaleed taa oo macnaheedu yahay nominational sentence waa maxay markii aan rabo inaan dhaho tusaale aniga waxaan ahay macallin adiga waxaad tahay arday waxa qof ku sifeynaya qofka adigu noqon kara anigu noqon kara qof naga maqan sida ugu sifeyn lahayd kaliya sifa ma aha waxba magacaabi kartaa marka luqad turki waxa la isku dhahaa isim jumlaleed waa basic si aad luqadda ugu hadasho asaaska u baahan tahay ayuu ka mid yahay grammarka inaad taqaano oo guda galeena evet devam edelim halkan muxuu ku leeyahay kişiler zamirler waxaan marka hore isla eegaynaa magacyaalada afka turkiga ben sen o, biz, siz, onlar. Waa lixda afka Turkiga. Ben, aniga, sen, adiga, o, isaga ama iyada. Sidoo kale wax shay uu noqon karaa, xayawaanna uu noqon karaa. It, Englishka he, she, it. Inta waxaa la isku dhahaa afka Turkiga. O, biz, annaga, siz, idinka oo jamaca onlar waa iyaga sidoo kale onlar waxay kala noqotaa shay badan marka ka hadlayo oo naga maqan marka ama naga fog ama xayawaan fara badan oo arki doona qaabka uu isticmaali doono waxay inoogu xiga marka hore grammarka si aad u taqaano ama si fiican ugu fahanto waxa u baahan tahay inaad taqaano magacyaalka waxa la raaciyo marka la jooga ben waxaad raacinaysaan afarta mid ka mid ah im im afarta waa haysanaa kaliya ben bay qaataan yani jumlada qofka dhahaya ama sifaynaya ama laga hadlay in aniga waxa lagu gartaa afka turkiga afarta mid baan raacinaya haddaba see u raacinayna oo isla arkayna sen afartan baan raacinaysaa waa sin sun 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 oo waxba ma qaadato yani gunaanadka oo waxba kuma dareysid waxa ka wada isla fahmi doonaa waxa inoogu xiga siis waxay qaadataa sinis sınız sunus sünüs biz iz ız uz üz afartaa bay ina qaadataa markii la joogo onlar lar leer keliya qaataa haddaba see u raacinayna marka يعني أنا أفرتها وحكى الله كم سوق هذا حد دورني أما هذا ليا أما أراد وحسفيني وأنا أو بين أفرتها سيكو دورنيا رول كهالكا وقوريا هدي جملة ده شغل كقدام بيو وياهي لبضع متكملة كالركع بدله لبضع يعني عن بيبيع عليه مركيته هاي وحد دورنيسا متكوتو ده بلا بيبيع ده hadduu been yahay hadduu sen yahay oo zaata waxa uma qaadataa niri csbs qaabkaas u eegaya yani maxaa ka wada tusaale halkan ku qoraya intaan tusaale qorin iyo hadday u dambayso dhibic leh oo iyo hadday u dambayso aan dhibca lahayn bilaa dhibic leh midka wata dooranaya da dhibcaha leh midka wata ayaan dooranaya tusaale maxaa ka wada halkaa waxaa inoogu qoran masala ne diyelim doctor baa haysana oo magaca أما سيفوين كاتقاني أفكار تركيا ميت كاتدون تسوقاله مثلا زنجين وحلقة ولا أفكار تركيا تاجر وحن ربعين عندها مركب نختار بانا هاي أما دي قاعد نختارها أما يسقى يجا أما نجا حد بكهرب مجا عيالك ممكن صوت دورة تكبعدي صفدي أما مجا عمرك تلمامي نختار نمط تصالة وسوق على ني باندورنا يا شغل كقدام بيا مركان هاي يعني دكتور بهالكا ايغو قران شقلك قدام باي كلمه الدكتور او ان رب انان كسفيو بانيغيا وا ايغني دكتور شقلك قدام باي وا maxay waa o aan dhibic lahayn xagee ku jirta markii aan rulkan u eegno halka yani muxuu leeyahay uda bila dhibicda mid ka wata dooro hadaan dhihi raba aniga waxaan ahay dhakhtar maxaan leeyahay ban aniga sifadii magacii baa keenay دكتور وده بلا دبع إلى متك وتدور أفرتن بين إقالته
ben maxay noqotay marka jumladii halka iyadoo waaweyn aan ku qoro ben aniga doctor waa iri anoo rulka u eegiya baa ku daraya ben doctorum dhakhtar baan ahay adiga haddaan ku dhihi rabo maadaama shaqalka u dambeeyo doctor oo yahay uuda bilaa dhibicida midka wataa dooranaya san uuda dhibicida kee wata sun san doctor sun bay noqonaysaa halka waa inta rulka u eeg kabacdina qaabka u raaci tusaalaha kala haysano zengin waa sifo waxaan rabaa inaan dhaho taajir baa tahay isaga ama iyadoo naga maqan waa taajirad tusaale iyaga ku bixinayna oo baa iri halka magacna wuu noqon karaa yani ali waa dhihi karaa fatmana waa dhihi karaa oo ama ali fatma waa taajir ama taajirad zengin waa keenay wax miyaa raacinayaa maya oo waxba ma qaadanin baa yidhi halkaa baa kaga haraya oo zengin fatma zengin ali zengin waa inta arday wey maa dhihi rabtaa isaga ama iyada oo arday muxuu ahaa orange qaabkaas u raacinaysaan oo sababtoo waxba ma qaadataan picture waxaan rabaa inaan dhaho isla sifadii zengin annagoo haysano sho ilaya zayn ثانية شنو بسيلين سيلين كله حالنا مثلا إذنك سيز وحاتهين تاجرين زنجين أو صفة دي هي باكيني محاكو دريا زنجين إيدي بيعلا قدام بيسو حدو شغلك إيدي بيعلا قدام بيسو محال إيري هالكابي كوشرتا إيدا دي بيعلا ميتك واتدورة hadba magacyaalka aad rabto inaad tilmaanto siis zengin maxaa leeyahay sinis sababtoo ah iyada dhibicda mid ka wato markii la joogo siis midkan ugu horeeyo qaabkaas u raacayna waa easy haddii aad taqaana marka sifooyin fara badan afka turkiga waad ku dari kartaa adigoo isticmaalaya formulkan isim jumla laa يعني سفوين كلا تقانا فقير مثلا وفقير نديل مثلا جزال أو قرحة حدان به الربو فقير بانا هاي بان فقير إيه دبع لقدام بيسي بان دورانيا قبل داوي قرح بان تهاي أو يضا جزال وحميها راعينيا ميا بيز لايري جزال بيز maxay qaadataa afarta haddii ay u dambayso waxaan raacinayaa baa la yidhi iyada dhibic la midka wado yacni biis güzeliz way noqonaysaa waxaa filayaa in la fahmay qaabka loo raacinayo evet devam edelim ben mesela muxuu yidhi halkaa tusaalaha aniga öğretmen waa macallin öğretmen maxaa u dambeeyey haddii u dambayso maxaan raacinayni markii aan rulka haddeer qaadayna soo xasuusano haddii u dambayso ama dhibicle haddii u dambayso waxaa dooranayay mar walbo shoilaya zaim waxaa dooranayay ida dhibicda midka wato yacni ben afarteedii waxaa ah midka dhibicda wato ida ah ben öğretmenim waa maxay aniga waxaan ahay macallin ben öğretmenim peki aan sii wadno tusaalaha kalena aan fiirino sen adiga öğretmen ediba u dambaysa weli sin baa raacinaya adiga macallin baa tahay bay noqonaysaa sen adiga öğretmen macallin sin baa tahay yani oo kaa u raacinaya peki oo waxaa uma qaadataan niri oo öğretmen keliya leeyahay biz öğretmeniz macallimiin baan nahay idinka idinla hadlayaa siz öğretmensiniz idinka macallimiin baa tihiin
onlar markii la joogo maxaa sameynaa marka onlar waxay qaadanaysaa niri lar iyo leer jowl ay waa soo qaadan waa la xasuustaa waa filayaa maxaa sameynayni lar ama leer ba ku dareeni saa daraadeed oraahda haddii ay tahay onlar shaqalka u dambeeya eeg haddii yahay xuruuftii kalin ee aan soo baranay kalin maxay ahaayeen a o u afartaa baa la isku dhahayay waxayna ii noqonaysaa afarta haddii midkood u dambeeya waxaan ku darayaa lar yacni a iyo inta bilaa dhibicda afka turkiga lar baa ku darayaa markii jamaca la joogo onlar inje waxaa la isku dhigi jiray xuruufta ahayd e iyo inta dhibcaha leh kuwaan lahayn kor bay igu qoran yihiin u afarta haddii ay yihiin leer baan raacinaya jumladda eeg shaqalku dambeeya afartaa kor hadduu yahay lar afartaa hoos hadduu yahay leer baan raacinaya magacyadooda kalin iyo inje baa la kala dhahaa pick waa eega jumladdii öğretmen e baa u dambeysa shaqalka eegaya mar walba afka turki shaqalka u dambeeya mar walba waa muhiim e wey wuxuu ka tirsan yahay qaybta leer baa raacinaya maxay noqotay onlar öğretmenler inaad ku darto afka turkigana ama aad ka reebto waa wax adiga ikhtiyaarkaaga leh keliya waa dhihi kartaa onlar öğretmen onlar öğretmenler haddaa dhahdana waa caadi cid qalad weeye ku dhahaysa male peki devam edelim arkadaşlar ondan sonraki slide neydi pozitif örnekler yani az önceki bahsettiğimiz kelimelerin pozitif şeklini nasıl oluyor zaten pozitifti maxaa ka wadnaa halkaa positive örnek baa igu qoran tusaalooyin positive maantana waxaa ka hadlayna positiveka ahayd negativeka iyo su-aashana waa isla arki doonaa diidmada iyo su-aasha ben aniga doktor ooba u dambeysa baa lagu daray sen doktorsun oo waxba ma qaadanaysaan niri biz doktoruz siz doktorsunuz baa leeyahay o markay u dambeyso maxaa la yidhi o iyo u hadday u dambeyso midka uda wato magacuyaalka soo dooro ruulkii uu inoo qoran yahay screenshot laga qaata filiya maxaa leenahay siz idinka doktorsunuz dhaqaatiir baa tihiin onlar iyaga doktor oo waa u dambeyso onlar maxaa ku dooranaynay kalinihinje lar baa raacinaya waa inta waxaa u gudbi doonaa qaybta negativeka ardayda saa u raacin lahayd